Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haweeneyda idiin muuqata waxay xabsiga u gashay shil baabuur dartiis. Laakiin ma laga yaabaa in shil baabuur uu keensado 50 sano oo xabsi ah? Muuqaalkeena maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa qisada la yaab kale ee Shanti Malaar. Shanti Malaar waxay dhalatay June sanadkii 1976 waxayna ku dhalatay gobolka Texas ee Mareykanka. Shanti waxay ahayd gabar kalkaaliso ah. Habeenada ka mid ah Oktoobar sanadkii 2001, Shanti iyadoo aad iyo aad u cabsan ayay xilli dambe oo habeenkii ka mid ah waxay soo waday baabuurkeeda. Baabuurka intii jidka ay soo socotay oo gurigeeda ay ku socotayna waxay ku dhufatay oo baabuurka ku dhacay nin darbi jiif ah oo lagu magacaabo Gregory Beggs. Wuxuu ahaa 37 jir, dhashay sanadkii 1964 kuna dhashay isla gobolka Texas. Wuxuu ahaa ninkaas nin darbi jiif ah sidoo kalena maskax ahaan jiran. Shanti iyadoo markii ay baabuurka ku dhufatay, ninku wuxuu ku xayirimay ama ku calaqmay sida tiraahdo miraayada hore ee baabuurka. Shanti sida caadiga ah normalka qof walba uu sameeyo marka uu shil galo intay baabuurka ka soo degtay ninka meesha kama saarin ama isbitaalka ma aanay geyn. Waxay sameeyday inay baabuurkeedii si xawaaro leh ku wado kadibna ay gurigeeda geeydo. Baabuurkeeda baakin ayay dhigtay kadibna gurigeeda iska gashay. Intaasna ninkii wali wuxuu ku xayiran yahay oo ku jira miraayada hore ee baabuurka. Markii ay muddo joogtay way ku soo laabatay. Waxay ku dhahday iska kii cafi walaalkay. Wuxuu ku lahaa isaguna war meesha iga deji. Iyaduna way ka tagayday guriga ku laabanayday. Wax yar kadib way u soo laabanayday. Iska kii cafi dheeyday. Isna wuxuu dhahay meesha iga deji. Guriga ku laabataa way u soo laabataa. Iska kii cafi deji way laabataa. Habeenkii sidaas uu ku dhamaaday. Sidaas ayuuna Gregory ku dhintay. Subaxii markii uu geeriyooday waxay u yeertay gabar ay saaxiib ahaayeen iyo wiil gabadhaas ilma adeer la ahaa. Waxayna ka caawiyeen labadooda inay meydka meesha kala saaraan kadibna ay meel kayna ku tuuraan. Markii ay soo laabatay Shanti waxay gubtay baabuurkii si wax cadeymo ah aanay uga soo bixin. Muddo kadib waa la aasay meydkii waa la helay waa la aasay laakiin wax cadeyna cidii dishay lagu mehelin. Sidaasna looma sii raacraacin maadaama cid badan oo ka fakarayda ama daba joogtay aysan jirin oo darbi jiif iska ahaa. Laakiin mar kale waxay u laabatay qaladkii hore u gashay. Habeenada ka mid ah ayay khamri aad u cabtay. Kadibna waxay bilowday markii ay sarqaantay inay ka sheekaydo dhacdadii iyo dilkii ay geysatay iyo wax walba sidii u sameeyday oo cadeyntooda iyo tafaasiishooda wata. Waxaan maqlay sheekadeeda mid ka mid ah dadkii ka agdhawaa meeshii ay khamriga ku cabiyeen. Kadibna wuxuu wacay booliska arrinka ayuu nala socodsiiyey. Shanti isla markiiba waa la xiray waxayna qiratay inay dishay Gregory Beggs. Sidoo kalena waxay sheegtay inay tiri cafi, yacni sheekadii sideedii ayay kaga sheekayday. Markii ay baareen dambi baarayaashu waxaa caddaatay in Gregory uu dhaawacyo badan qabin sidoo kalena uu badbaadi karay haddii isbitaalka ay geey lahayd ama iyadu haddii ay daaweyn lahayd. Sababtoo iyada badbaadi kartay oo waxay ahayd kalkaaliso. Sidoo kale dambi baarayaashu waxay soo cadeeyeen in ninkaas uu u geeriyooday dhiig bax maadaama habeenkii oo dhan uu baabuurkeeda suraa. Maxkamadda ugu dambeyn waxay ku qanacday inuu dil ula kac ahaa sidoo kalena isku dayday inay cadeymaha kharido maadaama ay baabuurkii iyo gubtay. Maxkamadduna ugu dambeyn waxay ku xukuntay Shanti Malaar 50 sano oo xabsi ah. Marka ugu dhow ay raacfaan qaadan kartana ama ay dalban karto cafisna waa sanadka 2027 5 sano kadib hadeertaan. Qisadeedana waxaa laga sameeyay filim lagu magacaabo Stark sanadkii 2007. Waxaan ku soo koobi karnaa qisada gabadhan lagu magacaabo Malaar, dabaalnimo, lagu daray fulaynimo, lagu daray khamri, waxa kaaga soo baxaya Shanti Malaar. Muuqaalkeeni maanta intaas uu ku egyahay oo iska gaabnaa. Haddii aad markii ugu hore soo booqato channelka halmaami subscribe like waa muhiim. Siina share garay oo asxaabtaada la wadaag si ay ugu yaraan wax uga faa'iidaan. Tan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.